بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo xaaladda caafimaad degmada Dhuuso-Mareeb iyo deegaanada hoos yimaada oo ku tabaqaya caabuqa adduunka coronavirus ama COVID-19. sidaan ogsoonahay waxaa jira fariimo caafimaad oo wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta caafimaadka ay dirayaan oo dadka lagu wacyigelinayo oo rabo in sidii lagu hortagi lahaa caabuqan aad looga shaqeeyo. waxaad moodaa marka in fariimihii caafimaadka ahay oo la bixinayay oo dhaqaatiirtii wasaaradda caafimaadka bixinaysay in dadkii aysan u nuglaanayn oo ay ka dhigeen wax ka soo qaad la'aan isla markaasna aysan qof ilaa hadda ku qaatay usu jirin marka laga fiirsho Dhuuso-Mareeb caasimadda Galmudug. waxaa kaloo jira in kaysaskii oo dad badan ay dhimanayaan oo ku dhimanayaan Dhuuso-Mareeb ayadoo aan la ogeyn waxa u dhimanayaan. sababtu waxaa waaye dadkii badanaa ma aaminsanaba cudurkan coronavirus. marka waxaa loo leeyahay qof hebel waa dhintay, qof hebel waa dhintay, midaa dhintay. xarumaha caafimaadka ahana waxaa laga yaabaa inay ka baqayaan in cudurka uu soo gaaro ayaga. markaas qofkii neefta ku dhaganeed aan la qaabilaynin oo aan la dhihin kaala mataqaanaa ii sheeg oxygen lagu siiyo waxaa yeelay waxay isleeyihiin cudurkii baa ku sii baahaya. marka waxaan rabaa inaan wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan cid kastoo qayb qaadan karta in la helo qalabkii lagu talagalay neefta si dadku mataqaanaa neefta ku dhigtay neef loo siiyo, hawo loo siiyo. waxaa jira xarun la furay oo isolation ah oo laga furay isbitaalka gobolka. xaruntii waxaa u diyaara sariirihii iyo wixii laakiin waxaa ka maqan qalabkii lagu talagalay in bukaanka haddii neefta ku dhigto in neef mataqaanaa hawo la siiyo. mashiinadii waaweynaa oo oxygenadii sida ventilatorada iyo waxaas wixii la mid ah. hadda ka hor waa dirnay qayladhaan waa hadalnay ilaa haddana wax lasoo gaarsiiyey Dhuuso-Mareeb ma jirto. waxaa la fiirsanaa oo keliya markii cudurku sii bato wax macnaha hadhow ma keenayso. waxaa ka ran hadda in wixii la qaban karo la qabto oo dadka hadda loo gargaaro. qof kastoo maanta wax ku bixiya hawshan ajir buu ka helayaa weligiis. waxaan rabaa marka in dadkuna ay qaataan fariimaha caafimaadka. waxaa arkaysaa sida meelihii hadda oo maqaayadihii iyo hoteeladii iyo maxaa la dhahay meelaha aroosyadii meelihii dadka si isugu imaanayaan. sidoo kale baabuurta ka imaanaysay Muqdisho iyo kuwii ku imaanayay Itoobiya dhankan waa sidii u imaanayaan qaabkii sidii u socdaa wax isbedel lama arko. haddana dhibaatada way soo badanaysaa. hadda waxaan arkay laatan saac soo dhaafay ilaa 4 qof dhimatay Dhuuso-Mareeb ku dhimatay oo la duugay. waxaan tagay qowraha anoo sameynaayo kormeer waxaan soo arkay ilaa 4 gud la qoday. dadka marka ma ku baraarugsana qof kasta wax u dhintay waxaa waaye waa neefta ku dhigtay. marka waxaan rabaa wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan cid kasta ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Galmudug iyo cid kasta oo qayb qaadan karta in laga soo gaaro xarunta isolationka ee Dhuuso-Mareeb in la keeno oxygen iyo qalabka lagu talagalay qofka hawada markay ku dhigantaa la siiyo in laga soo gaaro si u dhaqsiyaha badanna mataqaanaa guddiga coronavirus ee Galmudug iyo wasaaradda caafimaadka wada shaqeynaya iyo dhammaan cid kasta oo ku shaqala hawshaas in si u dhaqsiyaha badan xarunta isolationka ee loo diyaariyay coronavirus ee caasimadda Galmudug Dhuuso-Mareeb in la soo gaaro oxygenkaas iyo qalabkaas lagu talagalay si u dhaqsiyaha badan. waayo waxaan maalin kasta aan qabanaa kaysas neefta ku dhiganta meel adduunka ma naqaano. maalintii marka wax dhibaato weyn waaye in wasaaradda caafimaadkuna ay arrintaas xoogga saarto oo laga shaqeeyo sida maanta haddaan helin inaan beri helnaa haddaan beri helin inaan saacado socdo helno waaye. ilaahay idno aad amaasna. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.